xubnaha halkan aan kula kulnay waxaa ku jira nabadoon axmed maxamed muuse oo markaasi adeer u ah allah u naxariistee gudoomiyihii gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yiriisow marka hore nabadoon kusoo dhawow dalsan t v bal iiga waran tacsida iyo dadka soomaaliyeed idin yimid. bismillahi raxmaani raxiim. ummadda soomaaliyeed dhammaanteed tacsiya inoogu timid, waana la tiraanyootay, waana la gubatay, waana la jiljilatay, waa laga xumaaday. wax laga xumaado waaye injineer yiriisow geeridiisa. nin qaali oo ahay, nin soomaaliyeed oo ahay, nin caalam ah oo caalamka oo ka dhintay, soomaaliya oo ka dhintay, ilaahay mulkule qaranka uu ka dhintay. wuxuu mudneen aa la yeelay, waa noolaga tacsiyeeyey. macal dowladda waa nooga timid, ra-iisul wasaaraha waa noo yimid, duubabka soomaaliyeed waa noo yimideen, nabadoonada soomaaliyeed muqdisho waa noo yimideen, waa ka tiraanyoodeen. laakiin haddana waxaa maqan qaabkii uu ku baxay ilaa iyo hadda ma hayno. qaabkii wiilkayna ku baxay ma lahaayo. waa maasha allah. waxaan rabaa qaabka wiilkayna ka baxay in la helo. dowladda soomaaliyeed haddii cadaalad jirto waxaan ka rabnaa in la helo. aniga waxaan dhihi karaa waxaas wax laga abuuri waayo, wax gobolka dhexdiisa laga abuuri waayo maan wax meel kale ka yimid ma aha. gobolka dhexdiisa ayaa laga abuuray, isiga ayaa u sarreeyey. inta ka hooseyso ama sakuuradka meesha joogo waa uun wax dhaxdaa. intaas waxay og yihiin waay. wax qaar dadka ma isla ogo, laakiin qaar ka mid ah oo asiga cadowgiisa ahay ayaa meesha ka dhex abuuray. aniga wax kalaa meel kale ka yimideen ma qabo. sanadkayga 71 sanaan jiraa, ma arkin tanoo kaleento, mana maqlin. dowladda maxamed siyaad barraa la soo shaqeynay, dowladdii oo cabdirashiidaan wax ka soo arkay. badanaa dowladda maxamed siyaad barraan aniga wax ka shaqeeyey. haddana nabadoon soomaaliyeedaan ahay, nabadoon qabiil ma ihi. iyaarkeyga wuxuu ku baxay si cadownimo ah, si ou mudneen. nin aqoon-yahan ah, dalka inuu horu dhiga rabay ou ahay, si ou mudneenaa lagu dilay. waa ka xunnahay. waxaan ka rabnaa madaxweynaha mudane cabdulaahi farmaajo, waxaan ka rabnaa madaxweynehayna iyo ra-iisul wasaarehayna, waxaan ka rabnaa iyo inta kaleoo ka hooseyso baarlamaanka, sakuuradka oo soomaaliyeed, dhammaan siyaasiyiinta kulli waxaan ka doonaynaa ninkaas barka uu ku baxay in la helo. dadkii dilay in la helo waay. wax ka baxsan male. goladaas oo waxay ku jiraan ama sakuuradka ah ama shaqaalaha oo gobolka meehana laga dhex sameey maan wax bannaanka ugu yimid ma aha. aniga saan qabo fikradeyda ay siisa saas waaye. waxaana ka rabnaa dowladda soomaaliyeed haddii cadaalad jirto waa inaa helnaa wiilkayna xanfafadii gaartay tu ka dara in la gaarsiiyo. dadkaasna la horkeenaa rabnaa, maxkamaddana la horkeenaa rabnaa. ehelkii baad ka mid tahay. dabcan meydkiisa maantay ayay ahayd in magaalada muqdisho la keeno. dib u dhac baa ku yimid. maxay tahay arrimaha dib u dhigay? dib u dhigay xoogaa cunug yar oo siga dhalay ayaa xanuunsadaa layidhi. saasuu dib ugu dhaca layidhi. la sugaayey berigaa takhtar la geeyey, halaasuu u baaqdaa layidhi. warar soo baxay waxay leeyihiin safaaradda ingiriiska magaalada dooxa ayaa meydka sheegtay in la baarayo, sida dadka isla dhex marayeen. bal ilahan maxaad ka ogtiin arrintaas? wax dhici kara waaye. ninkan dhalasha ingiriis oo haastay, shacibka ingiriiska ka mid ahaay. wax dhici kara waaye. dowladka ayna dheeraa la yidhi waa dhici karaan, laakiin aniga wixii aan u maqlay saasay ahayd. dhinacaasna waa ka imaan kartaa. dalka ingiriiskana waa ka tirsanayo, baasboor ingiriis oo lahay. dalka soomaaliyana waa u dhalayey. in dalka soomaaliya uu hormaro ugu yimid maahan. hadda ini dhibaato u keentayna ma ahayn. meeshan dhibaato shaqo uma soo doonan, laakiin dalkiisa iyo dadkiisa iyo diintiisa inuu wax u qabto u yimid. saanaana loogu amaalgudintiisa saasay noqotay. isla arrintan baaritaanka safaaradda ingiriiska ma maqashin idinku markii laga soo tago in ay imaan karto? dhag ahaan waa u maqlay, laakiin sida saxda ma hayo aniga. dhag ahaanse waa iduulashay waa maqlay. waa la baaraha la yidhi, waa la ogaahaa. saas waa jirtaa waana la yidhi. cunugaa ka jirradina waana la yidhi oo isbitaal la geeyaha qabatay. isbitaal la geeyaha saasuu u baaqdan waana la yidhi. labadaas walxaadaa laysku garab wadaa. wax jirana aniga ma ogin. magaalada dooxa ma joogno, laakiin inuu dalka ingiriiska ka mid ahay oo hadda ka hor madax ka naqday waa jirta. uu ka soo shaqeeyey intaas sano
isagoo yaroo dalkaas tegey macnaha inta wuxuu u yimid ma u imaanin dhibaato oo baahi shaqaa ma u imaanin laakiin wuxuu u yimid cilmigiisa wuxuu bartay inuu dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa inuu ku hormariyo amaalkiisana oo la qarxiyaa laga dhigay dadkii isaga hoos joogiyaa sidii ay ka taliyaan hoosaas la yeelay amaalmarintiisa saasay ka dhigeen waase arkayna aniga waxaan ka rabnaa dowladda soomaaliyeed waxaan ka cabahaynaa aan ka rabnaa dadkaas in maxkamadda la hor keeno